waxaan leenahay ilaahay rasuulkiisiyo haddii muuqaal kii ugu fiicnaa lagu siiyey oo dad ku liibaan in mandarkaaga quruxda badan ay fiirsadaan anagu kaa mid naqanayna intii fiirsatay oo quruxdiisii ilaahay intuu qurux uumay oo muuqaal iyo mandar jamaal iyo qurux la siiyey inay fiirsadaan ilaahay rasuulkiisa oo kama mid naqan haddii dhegab qallayluhu u ooyey inaad 3 ama 4 tilaabo maqnaasho fogaasho aad ka fogaatay oo u ooyey oo isu hana waayey ilaahay rasuulkiisa oo boqolaal iyo kumanaan kiiloomitir aan fogaanay ilaahay rasuulkiisa oo haddii dad qidmadaada ku meel gaareen ee cawadii ayagoo labadaada kobood labada balbal ugu jiraan iridda ay ku bari jireen ayagoo raba kaliya haddii aad soo baxdo inay labada kobood ku toosiyaan ee ay qidmadaada ku liibaanaan anagu soo ma gaarin ma aanan arkin dadkii xataa qidmadaada ku liibaanana soo ma gaarin haddii dad ay ku liibaaneen inay dhiigooda kula raftaan hortaada ayagoo naftaada sharafta la difaacay annaguna kama mid naqan intii hortaada dhiigooda kula raftay ayagoo sharaftaada difaacaya nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii kula jiray maalintii aad laheeda ilaahow aniga sakaraatul mawdka igu adkeey oo ilaahay ummadayda u fuuday dhinacyaalkaaga ku ooyayana kama mid naqan ilaahay rasuulkiisiyo waxay naga joogtaa haddaan ahaa lahayn turbada iyo ciidda nabiga qabrigiisa kulmisay calayhi salaatu wasalaam qof kastoo ka midu hadduu hal ciidoo ciidda nabiga waxaan iska sheegaynaa inaan ummadaadii nahay nooc maxabada ka midna aan ku hayno calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiyow kaliya waxaan ku leenahay intii liibaantay waxay ku liibaantay qidmadaada aragtidaada rumayntaada raacidaada iyo qidmada ay kuu qidmeeyeen annaga inaan kuu qidmayno inaan dadkii saxaabada ah ee lagu dooray intay kuu qabteen aan kuu qabanno ilaahay ma qadarin laakiin intii ku dhibtay inaan dhahno annaga dartaynaa seefu kuugu dhacaysay annaga dartaynaa ilikah lagaaga jebinaayey annaga dartaynaa lagu daqraayey annaga dartaynaa dhiig inta dhagaxya lagaa badiyaa kobahaagu dhiigga u buuxinaayay dhiiggaagu sharaftale u buuxinaayey annaga dartaynaa calool geel madaxa lagaaga saaraayo adagoo sujuudsan annaga dartaynaa wixii dhib oo dhan kuugu dhacayeen waxaanu leenahay ilaahay rasuulkiisiyo ummaddii laguu soo diro sidaas ku yeeshay annagu inaan ku nidhaahdo annagaa kaa raali gelihayno annagoo ummaddaadii ka mida annagaa kaa raali gelihayno intii ku dhibtay maantay annagaa kule annagaa ummaddaadii ka mida annagaana kule ilaahay rasuulkiisiyow xaggayna ilaahay kayrha kaaga jaasiyo ummaddii annagana lamid aheed oo intaasoo dhiba kuu geysatay adigoo badbaadadooda ka shaqayhaysid intaasoo dhiba kuu geysatana waxaan leenahay ilaahay rasuulkiisiyow annagaa kaa raali gelihayno annagaa riddo kaaga dalbayno ilaahay rasuulkiisiyow ka raalli naqo keliya waxaan rabaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maxabadiisa iyo jacaylkiisa yaanala ka badsanin sidii beriga sheekha noogu tirtirsiiyey inaan nebiga calayhi salaatu wasalaam
waxaa waaye intii liibaantay asay ku liibaantay annagaanoo intaan joognana waxaan rabnaa intii la nool yahay risaaladiisa inaan ku noolaanno maxabadiisuna nagu dhex noolaato nebigu nagu dhex noolaado maalinta qiyaamana inta loo shafeeco kuwa ugu horreeya ilaahay nagu daro keliya intaas aan ka shaqayno waxaan u malayhaa xafladda waqtigeeda inuu dhammaaday anigana inaan ii cudur daataanna waa rabaa haadaa wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh